مدن يالي مرويين كسو دوادا حفلة سنة جورة سيدات أورك السمافلك الصوماليات ألفا تراست إلى أساسي بشي جنوري أفريقيا طبعا كذي سنة كي لبض كونيا أفريقيا طبعا كي مدلقة جوجا سيدات سنة إيو شامبل وحنو ما هدعلنا دما ولا لها قيمها ليعاو هالكيمد قاسهان وحن جعلنا وسع بسين يدو بش أبريل لقبن جري حفلة أي نقطة سنة كان سنة كي أدوكتين أبريل واحد بشي بركة سريد رمضان كا سيدا درادة بشان جون اللي هذا سنة كي يعني قبلناي تاوحين ديارته غالي نقدان هوتيل دي غالي نقدان هذا تاسمي سن علين مرتدى شرفت له أي نوقتي شرية طبعا دل وركو كدي سنة هاي مركز ريال لندن أنا صعبين هذا كاس وعن كلام ريال لندن كعد سنة أنا صعبيان ولا لها كله كيميت قبل هذا UK سيدا مقالوين كبريستول برمنغهام مانشستر يا ليستر يا مقالوين كلابا أنا صعبين مقالة لندن وحي عن كتها يصدق وحي عبود انتين اوغنا هاي وقريقي مدى دالة او سومالي دو مركا يتماد كي سوغانتا يا سبورتيغا يا ورباهنتوبا اللي اسكو يرادو ارتسكا مدى دالة سومالي دو قربة جوكتا وحي نوكنا هاي كو اوغو عدعد وحن مقالة سيدو كالي قيبتا لباد لغو امانا ان اي تهاي مقالة هوي اوه arrimaha samafalka oo dhaqaale xoogan ku bixisa samafalka iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka dalka ka dhaca iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu amaano oo ay astaanta ku tahay magaalada London qaybta saddexaad ee magaalada London ay ku tahay astaan ee lagu amaano ayaa waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ee wadankan jooga ay aad ugu xiran yihiin dhulkii hooyo ama ha noqoto siyaasadda ama ha noqoto dhaqaalaha ama ha noqoto dhinacyada kala gedisan ee bulshada marka reer London laftirkiina iyo reer UK idinkuna isku sacbiya caawa inta kadib waxaan la jooga marti fara badan oo af Soomaaliga aan garanayn oo ajaanib ah iyo waliba dad ganacsata oo qoomiyadaha kala ka yimid sida qoomiyada wadanka Pakistan wadanka Bangladesh iyo wadanka India oo caawa donation ka qayb ka ah oo run ahaantii u soo gurmada walaalahooda kale aynu ugu talagalna caawa inaynu barnaamijka aynu siino wixii aynu aruurino qaasatan dadka u baahan naafada qaas ahaan dadka curyaanka ee u baahan wheelchairska oo aan jecelnahay caawa wixii halkan ka soo baxa iyo wixii lagu kababa inaynu gaarsiino dadka ajaanibkan waxaanu jecelnahay laftirkooda inaysan barnaamijka aysan noqon marti oo aan afkay fahamayaan aynu kula hadalno markaan si fiican ugu mahad celiyo hal dareemo dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad loo martiyo marka si fiican loogu sacbiyo we'd like to thank to the brothers and sisters from the Bangladesh community, the Pakistani community and the Indian community who are here with us tonight. Thank you very much indeed for coming along. It means a lot to all of us. qaarkood waxaan weydiiyay ma habeenkii ugu horeysaba caawa waxayna ii sheegeen waxayna sugayaan bariiskii macaana iyo hilibkii iyo chickenkii iyo mooskii Soomaalida marka il gaar meesha ay fadhiyaan hal lagu hayo fariiqamo qodna caaw barnaamijkan wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo badan waxaynu noqonaynaa live aan jecelahayna inaan ay walaaluhu diyaar yihiin telefishinada dhamaantoodna magacyadooda mid aan ugu mahad celin doonaa waxaan ku bilaabaynaa quraanka kariimka oo uu martiino ugu yahay ilaahay khayr ha siiye Sheekh Ismaaciil oo isagu reer London bulshada Soomaaliyeedna magac iyo qiimo ku dhaxle mar walbana umadu meesha iskugu timaado kaalimaha hore kaga jira inuu wacyi geliyo oo uu xasuusiyo sida uu muhiim tahay qaasatan caawo kale arrimaha samafalka ee lagu taageerayo dadka tabaalaysan ama dadka baahida gaarka qaba ee Soomaaliyeed ee walaalaheena ee dhulkii hooyo ku nool Sheekh Ismaaciil soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله عدد كآد بضية ما شاء الله ما في الليل وعصلها عدد كواجرية من كوحان صوت جرس محاضرة كفلن عدد يا كفلن لكن أنا بدن دون وقت إن شاء الله تعالى walaalayaal haddii laga hadlo charity ama sadaqa laga hadlo waxaan u maleynayaa waxaan noqonaysaa inaan ka fikirno wax yar oo la aruuriyo oo mataqaan qof in lagu taro
laakiin macnaha charity-ga iyo sadaqada iyo manfacadeeda dhinaca islaamka haddaan fiirino aad bay u weynta aslan asaaska dhaqaalaha islaamka wuxuu ahaa charity buu ahaa waxaa dadka iska soo gooyaan oo mataqaanaa ay aruuriyaan ay ku celiyaan mujtamaca ku celiyaan sadaqada ama charity-ga manfacadeeda marka ugu horeysa waxay kusoo noqonaysaa qofka kusoo noqonaysaa qofkii isagaa ka faa'iidaya wuxuu isku daahirinayaa naftiisu daahirinayaa wuu isku daahirinayaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkiihim wa salli calayhim sadaqada iyadoo lafteeda qof walba lagama aqbalo sheekh ismaaciil ilaa khayra siiyo waan uga mahad celinaynaa bilowga wanaagsan iyo sharaxaadda kooban sheekh ismaaciil waxaan jeclahay inaa ila soo dhawaysiin oo caawa isagoo waqtigiisa qaaligaana siiyey oo ku hadli doono magaca guud ahaan xubnaha golaha deegaanka ee xisbiyada kala duwan ee sida the Labour Party iyo Conservative-ka iyo the Lib Dem iyo the Greens ee ay Soomaalidu ka mid yihiin waxaan jeclahay inaa ila soo dhawaysiin Councillor Kasim Ali who is here with us tonight. si fiican loogu sacbi degmadiisa la jooga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkay soo sheegay khayr Allah siiyo xaafadan Kensington and Chelsea taariikh badan ayaan soo wada martay waxaan joognaa Courtfield ward la dhaho oo ay matalaan saddex colleague-ga ah oo councilka aan ka wada deganahay oo ka mid tahay deputy mayorka aniga xaafadan siyaasad ahaan markaan soo galay 2017kii ka horna bas la yiraahdo 70 oo jiradan soo maraan wadi jiray markaan jaamacadda aadi jiray and today ayadina aan maanta alxamdulillah deputy leader ka ahay of Kensington and Chelsea Labour Group adoo shaqeysanayo oo noloshaada wato wax walba la sameyn karaa rag badan oo isnaqaan oo ogaayeen Soomaaliya ugu ogaayeen waaga Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh ilaahna waxaan ugu rajaynayaa caafimaad inuu siiyo maadaama hadda qof laga shaqeey saaxiibkay waaga la shaqeey jiray lagu yiraahdo dib ma u noqonaysaa hadda maadaama arrimihii saaxiibka soo laabtay waxa ay saaxiib Kensington Chelsea laga doortay hadda waa ku soo duceynaynaa hadda waa ku soo duceynaynaa insha Allah taala waan u duceynaynaa ee Soomaaliya oo dhan mar kale waxaan leeyahay ku soo dhawaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee caawa nagala soo qayb gashay barnaamijkan muhiimka ah Alpha Trust xaafadan Kensington Chelsea oo xaqiiqda taariikh dheer naga ah oo aan markaan soo galnay siyaasaddan hal qof ku ahaa laakiin hadda maanta aan saddex qof oo Soomaaliya aan ku matalayno deegaano kala duwan ee xaafadana marka waan ilaahay mahadiis waxaan insha Allah taala rajaynaynaa inaan horay uga sii socon doono oo aan representation fiican aan ku yeelan doono Alpha Trust iyo waxaan u hambalyeynaa teamka Alpha Trust iyo dhammaan shaqaday soo qabteen ma idinku fogeyn doono insha Allah few minutes ka si fiican iga aqbala waa ogahay inaad in badan covid lagu jiro la is arkin arrintan musiga meesha loo wada joogo sheekh xataa hadda waa iska dir aniga waxaan ku yiri hadhow waa kula sheekh waa ka dabay maanahan ku yiri insha Allah sheekaygi saaxiibkay waaye warka waa wada joogeynaa insha Allah I will make it quick laakiin waxaan rabaa wax muhiim ah oo really taabanayo inaan kala hadlo horta marka hore walaalayaasha ka soo qayb galay aad iyo aad aan ku mahad celinaa dadaalkiina iyo wanaagga iyo u timaadeen iyo taakuleenta Alpha Trust taakulenaysiin anigana aan kamid ahay oo aan rajeynaa insha Allah taala inaan qayb weyn ka qaadano waan ku mahadsantihiin wajiyada aan arko dad badan oo siyaasiyiin oo xataa councilor ka kamid ah wadankan hadda ciise oo kor kamid yahay iyo councilor badan joogo oo laga doorto maadaama magacooda aan ku wada hadlaayo waa in soo dhaweynayaa siyaasadda Britain haddaan wax yar kaga taabto wadankan waa wadanka Soomaalida ugu badan aan dhihi karo Mareykanka xataa markii loo aan ka badanahay laakiin ma lihin member of parliament qof banjiga gaduuda buluuga greenka ah ku fariiso Soomaaliya wala ma imaan waxaan yiri dadka dhan bas driver wada sugayeen intaan ka soo baxayo hadda marka insha Allah taala is the next chapter waagan baska ka wadi jiray xaafadan 10 sano ka hor waqti badan ay ahayd soo wareegtay xisaabo kala duwan iyo nolol kala duwan Soomaaliya ka soo shaqeey NGO la shaqeey organization la shaqeey companyal director ka noqo wax badan qofka process soo maraa waa nolosha wax ku dhisan
إن شاء الله تعالى وحرجينا إن نهرو سعودسينو dadka Soomaaliyeed ee wadankan degan ee lummatalaad ay helaan meesha rabana ka soo baxaan sanadkan gudihiisa ama sanadka soo socda ama 2024 waxaan ku dadaalaynaa inaan helno qof member of parliament ah oo magaca Soomaaliyeed nala helo oo UK ka tirsan insha Allah taala taasna waxa keenaya waxaan dhisnay aas-aaskii Soomaalida dadka xildhibaanada dawladaha hoose ka ah way yaraayeen Somalis for Labor ayaan waxaan dhisnay muddo 3 sano laga joogo hadda numberkaas aan ku joogno almost waa double aan ka dhignay ka tusaale ahaan Kensington kaliya ayaa ka ahaa Chelsea Somali councillor saddex hadda kuna Somali councillors so waa fahmi kartaa triple numberka aan ka dhignay marka anagoo isticmaalayna that word waxaana u sheegaynaa insha Allah taala madaxda wadankan sida Saki Stammer oo kale oo Labour-ka hadda mas'uulka ah oo aad u jeedeen doorashada xalay la soo dhaafay aan conservative ka soo ceshanay kursiga 2019 naga qaateen rajeynayna kuraas badan inaan ka soo ceshano hadii alla idmo ay ka mid tahay xaafadan Kensington iyo Chelsea Kensington member of parliament boqol iyo konton cod kaliya ayay ku haysataa hadda haweenta ku fadhiso waxaan rajaynaynaa inaan boqol iyo kontonkaas aan 5,000 cod uga soo bedeli doono insha Allah taala oo aan dareensiin doono inaan meeshan wax ka bedeli karno waxaan kala hadlay kamid in Soomaalida representation yeelato inaan maalin kasta wadankan waa deganahay loo arkin dad qaxooti ah taas waa aan ku yiri Soomaaliya arrimaheeda dad ha loo dhaafo inteena kalena inta aan joogno ka shaqeysano oo aan dalka systemkan fahanno marka Kensington iyo Chelsea hadii alla idmo 2024 haday dhacdo doorashada ama 2023 waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan u ordi doono insha Allah taala oo aan rajaynayaa markaad maqashiin inaan u ordi doono Kensington oo adigana insha Allah taala kulanta kamid noqon doontiin oo aad insha Allah ugu taageeri doontaan gabadii siyaasadda kaliya kuma fiicnaan ama bas kama soo shaqeyn siyaasadda kuma fiicnaan waxaan rabaa inaan u sheego wax kasto aan qabanayno charity inaan ka mid dhigno charity ama wanaag la sameeyo ilaahay ummadaad adigu ku xifdina awlaadaadu ku xifdina familigaadu ku xifdina hadduu odagowsan hagaagsanay oo ku soo hagaajina hadii xaas wax kiyo ku hagaagayaan charity waa number 1 so please qofkii u baahan inuu ilaahay ku xirmo charity ku dadaalo sida darteed Kensington maadaama aan aad u jeclaa xaafadda 22 sano aan deganaa aan ku fiicnaa waa gabagabadii khudbada hadalka idin wado aan ku fiicnaa inaan basbaaska aad u jeclaa baladweyne waagaan joogi jiray oo aan basbaaska karintiisa ku fiicana dimaashiyaashay anaga wada qaataan freezerkay kala soo baxaan waxaan go'aansaday covid-kii 2020 26 of October 2020 aan meel kasta xirneed waxaan maalin kasta ku daalay basbaas raadisay niho ma adiga iska samaysatid actually ma gadid ba hadda kadib you know what maalintaas research bilaabay wali waa wada stage ugu dambeeya marooya Kensington sauce already saddex stage waa stage ugu dambeeya soo gudbay November waxaan rajaynayaa Kensington sauce oo basbaaska aad taqaaneen Soomaaliya inaad siyaasigiina ka galan doontaan insha Allah taala lacagta ka soo bixi doontana waxa ballan lacagta ka soo bixi doonta Alpha Trust in lagu taageeri doono hadii alla idmo aan u mahad celinayadana si aan ugu sacbin السلام عليكم وهذه وذا السلام مساوذ الانتين صومالي وين ما أنت هذا وفرح سنة هرت إن كسر قيب قاتي سنة كيسديدات ألفا تراست ولي ميكروفون ما قبل سنة عاوة وهريسو في صوماليا حتى جاج ويرالي نقطة so I hope all of you understand what I'm talking about so I hope all of you وحنكون فرح سنة supporting كينا أيام ما أنت ألفا تراست لنعيق سو استاجين أو إذا كان ذكي maalgelinta isiyay aniga iyana ku saacidiyay hadaan is saacidin waxba ma qabsanayno Soomaha Soomaali weyn go ahead business ka gabdhaha wadaan dhan waxaan leeyahay go ahead for good and Alpha support I love you forever I'm here I tried thank you thank you nasraan u mahad celinaa aad iyo aad u mahadsantahay boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantahay so aan caaw u mahad celiya dhammaan fanaaniinta nala joogta midaan magaciisa u sheegaya kan u sheegi doonaa kadibna aan u mahad celino waxaan ka bilaabaynaa lajna macallow oo fadhiya dhanka midig dhankayga fadla macallow istaagado raaliya ku sacbino waa hobolladii waa bari waa musician caana waa xubnaha Alpha Trust waa very special man macallow a true legend صعب فضلا عن سيجارة وصعب إنه one of the greatest an icon a legend of one of the finest so معلو شرف إنه تينا عاون على جوتيد هلا ريان سينا يا معلو ضد كنا ولا ما بينها مرة بعد أقول لنا صعب
Somalia. No مخلوق. Somalia. No. Somalia. Good. بسم الله الرحمن الرحيم. horta ilaaha mahaddaas iskale waxaan u mahadcelinayaa dadkii barnaamijkan oo ugu horeeyo guddoomiyaha saaxiibkeyga daahir tan lamaad soomaalidu waxaan u sheegaa barnaamijkan oo kale waxay u baahan tahay ku dayasho dalkeena anagaa yaan la sugin wax mucaamalo dibadda laga keenayo sababtoo ah qabiilka caawa way fadhiyaan gobol fadhiyaan war soomaaliya gaarteena isqabano aad ma sayay saaxiibkay macallimo fanaaniinta caawana la joogtaan jecelahay inuu wada mahad celino fadlan sacabku waa xaggiina fanaan walba marka magaciisa aan sheego fadlan aan si gaara ugu mahad celino waxaana usi badan dhammaan fanaaniintan inay yihiin fanaaniin si mutadawacnimo noola shaqeeya isla markaana wax dhaqaale aan naga qaadan oo mar walba urka Alpha Trust markay timaado waqti badanna siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayran siiyo dadaalka ay ummaddu u hayaan balse intaan u gudbin magacyadooda waxaan xusayaa in daawadayaasha dalka caalamka joogaan in daawanaya barnaamijkii Alpha Trust sanad guuradii 8aad ee ururka Soomaaliyeed Alpha Trust inta caawana la joogto waxaa ka mid ah Nimco Yaasiin Caraale iyo weliba xaajigeeda Abdirashiid xaajigeedana loo saabiyo fanaaniinta kale caawana la joogto waxaa ka mid ah dhankaas aan ka soconay Nuur Daalacay oo isagoo xubnaha ka mid ah ururka Alpha Trust fanaaniinta kale caawana ka mid ah Deeqa Hol fanaaniinta kale caawana la joogo waxaa ka mid ah saaxiibkay Yuusuf Jaaga fanaaniinta kale la joogo waxaa ka mid ah fanaaniintii hore kooxdii Iftiin Macallin Sayid Khalifa fanaaniinta kale caawana la joogo waxaa ka mid ah Seer Maxamuud fanaaniinta sokow ragga ka dambeeya shaqada caawada waxaa ka mid ah saaxiibkay DJ Cash iyo weliba Allamagan Studio Cabdimaalik fanaaniinta kale caawa noo soo socda waxaa ka mid ah Kim Jaamac oo iyaduna marta caawa barnaamijka ku ah qasada aan ogahay fanaaniinta in mid walba uu yahay akhlaaqda fiicnaa ugu qiimaha badan ismeynaya isqadaya waxaan jeclahay inaan ku bilaawno hees uu si gaar ah noogu galay fanaan Sayid Khalifa oo Iftiin oo aan jeclahay inuu si diyaar garoobo waa heesta ugu horeysay barnaamijkeena caawa ku daafuranayno waxaan xasuusinaynaa in Snapchat-ka markaad duubtid uu yahay twitterka Alpha Trust Event 2022 soo marka waa shidana caawa Snapchat-ka la soo baxa waa Alpha Trust Event 2002 marka waxaad duubaysid twitterka raadi last waxay 1.2 million viewers caawa 2 million viewers aan target gareynay soo marka waxaad isticmaashaa Snapchat-ka markaad duubaysid filterka Alpha Trust Event 2022 oo aad arkaysid qof walba Snapchat-kiisa ka fiirin kara waxa marka aan isdiyaarinayna Sayid Khalifa diyaar ah filaya oo caawa aan madadaaladii baan galaynaa waxaan jecelnahay inaan dhammaantiin waqti fiican wada qaadanno qof walba meeshiisa ha fadhiyo waxaan u mahad celinaynaa shaqaalaha maqaayadda Savana Restaurant iyo maamulkeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يبغى مغلان. يا. هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعني ويني وين السلام عليكم لندن إيو. غير يوم هذا ما تستوى لقيمين. هذا إيرس مفعول. inta aan anagu naqaano yurub ka dhisan wakii u horeeyey waxaa loo baahan yahay sida aad maanta u aragtaan qofka hore u yaqaanana uu yaqaanay qofka uu ku cusub yahay waxaan ka filaynaa inuu wixii maanta ka dambeeyo tareenka soo fuulo oo jeebkana gacanta geliyo haddii ilaahay midda xigta haddee Soomaali baanu nahay waddankeena muddo badan ayaan ka maqnay
caashadeenii kalena aan caaway ku faraxsan inaad la joogto caasho maxamuud yuusuf caasho lul oo ay noogu tala gashay poem caasho lul fadlan sacabku xagin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان dadweynaha sharafta badan ee ka soo qayb galay xafladda samafalka qiimaha iyo qaayaha badan leh walaalaha soo qaban qaabiyay waanu mahad celinaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro waanu ducaynaa gabay yar oo laba midha markii caadilka weyne caloosha hooyo dhexdeeda ku abuuray cadkeennu cabiro nolosheenna caynka ay mudan doonto ciwaankeeda saxeexay caga ay ku ordaan iyo caafimaad ay ku socdaan casiiskeennu ma waayin innagaa caqligeenna iyo caynka aynu ka yeeli caadilkeen nagu eegi waa dadka aan laxaadka lahayn ciise ruuxna ma dheera caqligaaga ma fiicna cirdigiinna ma gaadhno sharaf caadka maraysa caadilka idin siiye cawadiinna ku faan hadaluu tuure cawaan kuugu yeedhay curyaan waqdadii ay kugu beerin oo calooliyow kugu haynin dadka yacni caaya ku yidhahda curyaamin weeyaan waa sidan ha u fiirsanina waxse aan la cajiibay madaxdii carrigeenna codkeenna aynu ku saarnay iyo calankaa babanaya ciiddii ay ku dhasheen ay ku ciilan yihiinoo ciidina aan culimaan ka hadlaynin ninkii cuudka lahaa iyo taajirkan cidna eegin shacabkeenna cudoonow innagow cida maantee ceebiyay ina raacina caawimaadaan dhiibno waa mahadsantihiin walaalaha waa mahadsantihiin abiyaad adiguna habar waad mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay caasho luul fadlan aan u mahad celino nimco yaasiin caraale nimco sharaf nimco yaasiin caraale noogu xigta waxaa nala jooga sidoo kale ambassador maxamed cali nuur americo oo ka mida marti sharafka caawa halkan joogta nimco yaasiin sacbu xakiim السلام عليكم اسمع يا او محاي اول فنانين سوى كابتن عاو واحد وفرحسن ما شاء الله انا كسوق الجلاحة في المخلوق بدل انا قدر من بباكها هاي ما شاء الله هذا حلو فرحسن انا عاوكي صاحبتي ولا شيء أردو ست سنة استبصر لي ولا إله إلا هنا هبي إبراهيم أنا فكرت لي يا رسول الله هذا قصبي هيا أنا هواك موقع عنك يا أبو ولا أبي ولا سالمني وقضى عاد بفرح سنة هاي وقضى عاد ترسوح لي هم ليستو أمين لها ستنا قولي وانا وصلت إن شاء الله تقول لي كريم كاسات وكل مساوض عدلنا waxaan qaadayaa heesleeda hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu hayayaa haddana waxaan doonayaa inaan ragga su-aal weydiiyo anigoo maarta kaftamaya asluubtana ka baxaynin waxaan idin weydiinayaa hablaha miyaa lala qoslaa mise waa lagu qayiya ragga intarneel waa lala qoslaayo ba gacanta taagan walaalayaal ugu walba reerku ka soo toosay gabadha wuu leeyahay gabadha wuu qabaaye waa lala qoslaa soo maaha يا أبو قيليا يا ما يا ما شاء الله ما كان هذه الموت قال كنا Kacil aku sedih
fadlan qof walba meeshiisa ha tago si aan u casheeno heesuhu way noo soconayaan waqti badan baynu haysanaa waxay la soo dhaweysaan faaduma oo noogu talagashay ku saabsan muhiimadda ay leedahay arrimaha samafalka arrimaha dadka naafada oo caawa nala joogta fadlan codkiina gaabiya idinkoo raaliya faaduma faaraxan jecelnahay in aynu dhageysano khudbadeeda fadlan ها مسكين تجيستا تما حشمين يسميها مقعي وفاطمة فرح I'm a proud mother and a wife. An entrepreneur and a campaigner. Before I became disabled, I did a lot of human rights advocacy. But life is a journey, and my life turned. At the moment, I'm a campaigner and an entrepreneur. I work with a lovely team called Make Some Noise. Waxaan maalkayaga, waqtigayaga, xoogayaga u hurnay anagoo Make Some Noise inaan waxyigelin badan samayno iyo samafal badan inaan samayno oon u samayno dadkayaga Soomaalida caawa su'aal baan qabaa su'aashayda waxay ku socotaa abwaaniinta fanaaniinta culimada iyo madaxda Soomaaliya wayga su'aale dadka baahida gaarka leh miyaan colownay liif miyaan ka qaadanay because hal abwaan u tiriya hees qof curyaan ama nin ha ahaado ama naag ahaado ma arag but wax kasta kale waa loo heesaa anyways wadankan aan joogno xuquuq badan baan ku leenahay wadankayagina xuquuq kuma lihin balse waana la caayaa waana la midabta koraa xitaa jannada waa naloo diidan yahay waxaa la yidhaahdaa jiis janno ma galo aniga ma oran Soomaalida tiri waxaa la yidhaahdaa bilaayo ama ha ila aato ha lug la aato hey bilaayadan way luga laadahay aniga ma oran Soomaalida tiri midda kale ma iscaawino markii wadanka la joogo xitaa caawa la isma ixtiraamayo qof jiis baa hadlaysa weli waa sheekaynaysiin laakiin fanaanada markay heesaysay waa la aamusnaa qof walba oo qolkan ku jiro I am sure 80% daawooyin bay qaataan magaaladan wada joognaa way xanuunsan yihiin lama yiraahdo laga yaaba aniga inaan hal kiniini qaadan laakiinse la yiraahdo way xanuunsan tahay thank you waagaan socday dad badan waxaan ahaa lafdhabarka Somali community London hadda laakiin waxaan noqday gabadha xanuunsan odayga waxaa la yiraahdaa ninkii gabadha xanuunsan odaygeeda tahay ma sha Allah niyo nin fiican baa tahay anna waxaa la igu yiraahdaa ninkaaga waa hero su'aasha aan qabo waxa weeyaan maxaa hero ka dhigay fadlan hero maxaa ka dhigay because wuxuu sameeyay waxa nimanka Soomaalida aysan sameeynin naag xanuunsan buu la joogaa my question is hadday naagtaada xanuunsato ama uu ninkaaga xanuunsado ama ilma xanuunsan lagu dhalo sababta looga tagayo maxay tahay
adigu when you're walking out of that marriage taada ma hubta 20% of the UK community is disabled lahumana dhalin aniga lahuma dhalin disability ga qalanjo dheer oo leegleeganaysan ahaan jiray I am still qalanjo ma leegleego but I roll with my wheelchair with pride. Anigo very proud but wheelchair kayga ku socda. Thanks so much. Thank you so much. Anigu maka xishoodo disability ga. qof hadduu idhaho jiis baa tahay waxaa dhawaa nimco ilaahay i siiyey nimcooyinka ilaahay bay ka mid tahay. You are my favorite, so make some noise for her. Make some noise. hadal yaani ku daalinin anigu waxaan joogaa waddan oo wax kasta la ii qabanayo. Human Rights Act European maxaa dhahaa act of waxaan qabaa so many acts and kara ma fahmaysid laakiinse Soomaaliya ilmaha dawarsanayo cuuryaanka guurguuranayo hooyada cunto la'aanta leh oo 5 caruur oo disable haysato amba dhagool ha noqdo ama indhool ha noqdo ama camoole ha noqdo oo guurguuranayaan oo waxay cuno haysan darkayga waxaan geeyay London Fashion Week 2021 sanadkan waxay ahayd inaan aado New York Milan iyo Paris laakiin dib baan u dhigtay next year waan ka dhiganay July personal reasons. Make some noise for Sister Fatima. aad iyo aad u mahadsan tahay Fatima Farax waxay leedahay Fatima Fellowship Fashion Industry London barnaamij baa loogu qabtay please whatever you do aan sacbina Fatima Farax معايا سيدي دول داعي فنانين وإسرائيلية سفرات الجنة كم بيهين أنا ذكرت إن بحر إنك إيو سام حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعاً هنا وحنا نسلم على ضد هالك الكسو قيدا. مرة وحنا هاي جمع النقد الفنانين تمحار ألف ترس وقلنا. ألف ترس وحنا قلنا معنا هذول الحجوزيين. waxaa la yidhaahdo shanta Soomaali halkan markay joogeen dhammaantood waxaan nahay Soomaali shanta Soomaaliyeed ayaynu nahay marka Soomaalinimadu waa waxa keliya ee innaga ina midayn kara siyaasi waddankii jooga waxaan leenahay waddankaa joogto wax ka qaban halkan baynu joognaa waa inaynu idin noqonnaa gobol kasta magaalo kasta shanta Soomaaliyeed ha noqoto heesta aan soo wadana wuxuu ka sharaxaysaa Soomaalinimada waa wax qurux badan oo aan qofna diidi karin maanta haddii lagu waa qof Soomaaliya ayaa South Africa lagu dilay oranaysid waa qolada wax galukeey waa Soomaalinimada marka heesta waxay sharaxaysaa waa Soomaalinimada diito haye Yeah.
sidiina u fadhiya cashaduna ha socoto fanaaniinta midnad baa lagu yeerayaa iminkan ila soo dhaweeya saaxiib muddaa naga maqnaa afar trustana ka mid ah Yusuf Jan right care pharmacy aad iyo aad u mahadsantiin waxaan sidoo kale nala joogaa aan u mahad celinaynaa saaxiibka Hashim Ducaale oo ah Her Majesty's MBE dadka ku guuleystay barakatiriska ah Soomaalida aan u mahad celinaa aad iyo aad u mahadsan yahay qoraaga abtidoon asaga aad iyo aad u mahadsan yahay oo caawa martiino waxaan jeclaa markaana inaan soo dhaweysiin fanaanada da'da yar King Jama oo aan jecelnahay in ay heysay noogu soo talagashay safarna uga soo laabatay aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan jeclaa inaan u mahad celiyo telefishinada caawa barnaamijkeena martideenoo ah kalaha telefishinka Dalsan TV warbaahinta madaxa bannaan waxaa ka mid ah Maryam Goole iyo weliba Shukri from Luton waxaan kaloo shirkadaha barnaamijka sponsor gareeyay qaasatan waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha sharafta badan ee Safana Restaurant iyo waliba maamulkeeda oo cashada caawa sponsor gareeyay thank you very much caawa kaliya maani every night along the lines and also sameynayeen so thank you so much for that wonderful donation and support maamulkeeda gadaal fadhiya aad aad ugu mahadsantihiin and saaxiibada kiimita aan yeerin waxaan kaloo u mahad celinayaa few individuals who are very at the heart of the mission of tonight. So let me thank you, Mona, Iya Faiqa, the kitchen team. Thank you so much, Mona and Faiqa. Fadlan and Usa Abino, they've been really hard working as always, as ever. So Mona and Faiqa and everybody who contributed. And my favorite of all, Amber, where are you? Thank you so much for all you've done tonight. So as she gets ready, King Jama Dawda Shamil Bedrugan, to the viewers, thank you. Tonight is a very special night. I want to probably get Gudomiya Dahir in about 2 minutes time. Lakin we're going to have Keen and then after that Dahir and then Fananita and Tudu Buson Banen. That's whoever you are and wherever you're from, everybody must everybody who supported us must their support. It means a lot to us and every year it will be bigger and better. The next year is not going to be in June, that's guaranteed. June has been a really difficult time for us. So hopefully next year, 2023, inshallah. Let me also thank team, welcoming team, Beqa Dagan, Ayam Dagan, Dahir Al Kulmi and Adna Arko, the welcoming team. Thank you so much, especially for all you've done tonight. The photography team, I've already thanked them. And also let me thank and I'm in the studio for their wonderful work tonight. So I'm waiting for King Jama. Let me get Dahir for that moment. So Gudomiya Dahir Ilaso Naweya, then King Jama will be Dona. So Fadlan Sa'ab Wahagina, Gudomiya Dahir Ali Kulmi. Sa'ab Wahagina.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي دمانتي dadka dibada ka yimid sharafta iyo qiimaha mudan ee dadka gobolada nooga yimid ee reer UK insha Allah mar raba inaan ku dheeraado waxaan soo istaagay laba eray inaan halkan ka dhaho aan isbaraarujino aniga halkan waxaan soo istaagaa mar walba waxaan shakhsiga la kulma hooyada dhibaataysan biliis qof walba waxaan jeclaan lahaa inuu siiyo qalbigiisa 2 daqiiqo biliis waxaan jeclaan lahaa qof walba inuu siiyo 2 daqiiqo maadaama aan la kulmo hooyadii dhulkii hooyo ku dhibaataysan iyo carruurta anigoo ku hadlay magaca ururka Alpha Trust iyo dhammaan xubnahooda sanad walba waxaan noo suura gashay dhulkii hooyo inaan meelo badan tagno ama gobolada badan waxaan la kulannaa hooyo haraad haysa ama hooyo carruurteeda ay uga dhinteen biyo la'aan marka that's the reason anaga Alpha Trust aan u jecelnahay in aan sanad walba hanano dad member ah na taageero si hooyadaas iyo carruurteeda wixii awoodeena ilaaba awood leh aan u taageerno walaalayaal qof walba oo magaceena garanaya waxaan jeclaan lahayn cawada Alpha Trust account-ka marka aan meeshan ku qorno waxaan jeclaan lahaa aniga iyo teamkeena waxaan soo diyaarinay fanaanad loogada inay ku qoran tahay oo aniga aan siixi doono gudoomiye Alpha Trust fanaanadaas waxaan ku siixaynaa dadka memberka noo noqonayo aniga bana xagga la taagan waxaan jeclaan lahaa shakhsi walba inuu member naga noqdo 10 gini bishii waa sanadkii waa 120 gini codsiga ugu fiican oo khayrka oo aan la jeclaysanay oo aan rabno ummadeena inaan ugu adeegno haddii aan Alpha Trust team das is the message-ka idinka caawa aan idin sheegi doono seen ku caawin karnaa hooyada iyo dhallaanka seen ku caawin karnaa dadka dhimarkooda dhimaya seen ku caawin karnaa dadka u baahan wheelchairska waxaan hortaala shaqo aad u badan walaalayaal waxaa xasuus mudan 2 sano iyo bilooyin ka hor waxaan diyaarinay flyer Alpha Trust oo aan halka inaan ku qabanay ay tahay maxaa koos gareeyay ilaahay mahadiis mar walba ilaahay noo mahad celin waayo cudurka covid in uu dad badan naga dilay oo maanta halka inaan ka xusno aan dadkaas u duceeyno maadaama ay nala joogeen xilli badan member ay noo haayeen qaarkoodna ilaa hadda daar dibad ay dhiibaan oo waalidkood ay dhaheen weli sidaqa ayay noo tahay lacagtaas ma la joojinayo dadkaas waxay nooga tageen dan ilaahay waqtigooda ay dhamaaday laakiin covid-kii ayaa waqtigooda lagu sababay marka inaan xasuusino shakhsi wanaagsan oo adigoo kala yaa habeen ka mid ah saana kale ula hadlaynay maanta wuu naga hooseeya anaga waqtigeena gaari doona marka waxaan naftiina iyo nafteeda kula dardaarmayaa biliis waxaan naftiina mar labadan ku soo celinaa iyo nafteeda kula dardaarmayaa in aan sabood gareeno dadkii dhulkii hooyo ku dhibaataysnay Alpha Trust waxay u taagantaa dadka jilicsan inay caawinto laakiin caaw aniga waxaan ballan qaadayaa naama gudoomiyaan ahay nolosheeda inta ka dhiman inaan u adeego ummadda dhibaataysan nolosheeda inta ka dhiman inaan u adeego danta yar ummadda dhibaataysan biliis waxaan jeclaan lahayn inaan na caawintaan codsigeena waa intaas fansan Alpha Trust biliis doonooshigaaga u baahannahay saboorkaaga u baahannahay maasini insha Allah وانكو دولة يا ليو ولك نصيب يا